laandheero bannaan ku dhacay maadaama aan naqday oo bannaankan ku soo dhacay cilada ummaddan aan ku soo dhaweynay saas darteeda nabadii nolol muxuu ahaa waa ii quuri weysay taliya laandheero taliya Muuse Raamoole oo muddo bil ah u xiraa ciidamada dawladda kadib xornimadiisa hadda dib u helay waxa ku dhacay isbedel jismi oo waxa isbedelay muuqaalkiisii kadib markii uu iska xiiray timo dhaadheer oo dadku aad uga baqi jireen waa taliyaha aagga deegaan dalxiiseedka Abaydhaxan oo magaalada Muqdisho uga beegan dhinaca koonfureed 17 kiiloomitir waxa laga yaabaa inaad rumayso weyso ama sabab aamino weyso in ninkaanu yahay nin nimir qabo maadaama sawiraantiisa iyo fiidiyoyaasha qaar ay yihiin kuwa aad looga naxo balse xaqiiqda ayaa ah mid taas ka duwan oo ninkan waa nimir qaba bal u fiirso warbixintan ay ka diyaariyeen telefishinka caanka ah ee RTN Muuse Muude Cabdulle Raamoole oo dadka badi u garan og yihiin taliya laandheere iyo ciidamo isaga ka amar qaato ayaa ka taliyo deegaanka dalxiiseedka Abaydhaxan oo 17 kiiloomitir u jirta magaalada Muqdisho dhalinyarada dalxiiska u taga deegaanka ayaa xiiseeyay in ay sawiro la galaan taliya Raamoole 7 bishii Abriil ayaa la xiray waxaanu dib xorriyadiisa u helay 7 bishii May waxa uu mahad celinayaa dhammaan dadkii sideentiisa ka qayb qaatay iyo gaar ahaan dadka taageerayaasha ah ee bartiisa Facebook aadka ugu xiran shacabka waa shacabkii waa kuwii taageeray oo soo daayay oo mar walba garabkayga taagan waxaana xambaliyo halkaan uga diray oo qaasa shacabka aniga muxuu ahay oo labada dhinac iga taagan mar walba waa aabe 4 carruur leh waxayna u kala joogaan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan iyo magaalada Afgooyi ee gobolka Shabeellada Hoose ciidamo oo soo taliyo ayaa shad sare ka ilaaliya halkan mana jirto talis oo ka tirsan yahay dadka halkan soo dalxiis taga ayaa iyagu wax u garta mana jirto cid oo qasb amniga guud ee deegaankan aniga uu hoos yimaada ciidanka meeshan joogo deegaankan joogan waa ciidan aniga aan aqaano hal oo koob iyo laba aan dhigi karo oo urur gaaray waa ciidan maxamuud deegaan waa shaqo kuma laha dawladda xataa shaqo kuma laha ciidanka sanad ka hor dadku waxay u dalxiis tagi jireen xeebta Jasiira balse 2019kii ayuu taliya Muuse waxa uu jeexay dhabooyin deegaankan si ay dadku u soo dalxiis tagaan waana meelaha hadda lagu jecel yahay in loo dalxiis tago sanad hadda la soo dhaafayo 2019 aan muxuu ahay dalxiiskan dib u soo nooleeyay waxaan ugu talagalay dalxiiskan aan u furay ummadda Soomaaliyeed meel walba ay muxuu ahay gobolada ay ka joogto inay halkan u soo dalxiis tagaan ay ku raaxaystaan ay tahay halkan ciidooda hooyo aanan loo kala sinnin dadka dhan ay ciidan ay wada sameeyeen yihiin oo qof walba oo sidoo doona ugu raaxaysan karo oo uu baashaali karo oo mari karo qofku rabo oo la hadli karo qof oo cunsuriyad gaar ah oo lagu sameeyo halkan deegaankan aad arkayso wareegsan gudihiisa horta ma jirto amniga deegaanka ka jira ayaa suuro geliyay in dhalinyaradu deegaanada fog ugu yimaadaan si ay ugu dalxiisaan halkan أهلا وسهلا ديدا وكلا ذهب ديدا الله ينزاي ديدا أما ديدا أما دونيدا أما ديدا أما دونيدا دما حيقي قاد ديدا نفس ما دويتي دما حيقي قاد ديدا نفس ما دويتي أهلا waxaase jirta in dhalinyarada halkan yimaada ay u yimaadaan inay laandheere sawir la galaan maxay taas sababta u la galayaan ayaga ay afkooda noo sheegay hadda kaafikal dheeriyeed awal adigu qofkii soo ahayd markaas tin dheero lahay qofka hadoo ka horma waa ka cabsayso aad waxaas dhahay ninkaan amal wax kale laga aaminaa laakiin ninka waa in aad iska fiican meesha xoogaa hadda amni asi qolo wata meesha joogaan hadda wahay oo amniga meesha sugan والله waxaa jira meel badan oo lagu dalxiis tago meeshan Abaydhaxan waxa ku xisho waxa u imaadaan in la yiraahdo laandheero Muuse marka banaanku arkay horta oo Raamoole ah waxa ka cabsanaya cabsi oo ka kana doo ku arkay ma ku dilays dhahay laakiin marka intii maadin habi oo kula sheekaysaa oo dad jecel oo waxa waaye dadka la dhaqmi karo waxaan ka aaminsanaa nin horta markii wajigiisa aragto oo ka duwan yahay dadka kale kadib markii timihiisa raamraamo iyo waxaas uu sameeyay waa laga cabsan jiray hadda laakiin farqi weyn oo u dhaxeeyo markii waji ka waji asu arkaysiin iyo markii baraha bulshada ku arkaysid
laandheero la markii ka arkeen magaalka oo social media marka ka arkeen dadka waxay nagu dhaayeen nin oo baalo dadka dilay waxaas ay naga aaminsanayeen marka hadda la imaan nin caadi bashaasho hadda arkabo nin aad u qorxoon oo ahaaba marka social media ka arkayna waxaas dhaayeen ninkan wallahi billahi caadi dadka kala qala wallahi habigiiga muxuu ahay qof walba habigiisa waa la qaybsadaan qofkii farxad ila soo doonto farxadii waa la qaybsadaan wuxuu aad u isticmaalaa barta loo yaqaano Facebook wuxuuna ku qanciyaa oo uu video call kula hadlaa taageerayaashiisa oo uu tusayo xeebta asagoo dhex damaashaaday muuqaalkan waxaan ka soo qaatay telefishinka caanka ah ee RTN waxaana soo duubay guriye Haajar Cabduqaadir oo magaalada Muqdisho jooga laakiin codka hadda saaran waa codkayga fadlan daawadayaal haddii aad ku cusubtiin channelkeena Barbaaris Media subscribe saaro calaamadda gambeelka ahna furo sidoo kale videoga like saar mahadsanidin